Hamogaan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ku raali geliya. Hamogaan oo ha ka maqnaan hooyga, qurxinta iyo daryeelka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan salaamayaa saxaabta ku xidhan Marwo Beauty and Cooking. halkan waxaan inoogu hayaa digaagan insha Allah kuma karin doono foornada, digsiga ayaan ku samayn doonaa sidiisaas isagoo ah isla socod wanaagsan iyo saan soo habaysto haddii Allahu idmo. iyo halkan waxaa ii yaala xawaashkii oo dhammaystiran, toon hadday tahay, kamsar hadday tahay filfil, hadday tahay sinjibiil, kaari ayu nooc. intaa ka bacdi asxaabtayda quruxda badan leh, halkan waxaan ku haystaa soya sauce ay ugu taqaanaan. soya sauce ku dari doonaa, biyo kuma karin doono inta aan hadda ku biyeeyo mooyaan ku sameynayo mooyaan. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad ka heli doontaan. Allahumma salli ala Muhammad. liin dhanaan sababta keentay inaan digsiga ku kariyo waxay kow ka tahay maadaama hablo badan oo walaalahaya oo jooga wadankii ay igu xiran yihiin, qaar badani aan isticmaalin shoolad si ay uga maarmi karaan shoolad ama hilibka ama digaaga. waxay samaysanayaan ay ugu samaysan karaan. halkan ayaan maanta ugu talagalay intaasaan isku soo qasi doonaa isla soo. asxaabtayda quruxda badan leh wada aragtaan insha Allah marka uu intaasi soo diyaar garowdo iyo wixii aan ku sameyn doonana isla socod wanaagsan. asxaabtayda quruxda badan leh wada aragtaan digsigii aan ku gurayeen digaaga kulay sad aragtaanba ama hilibkii digaaga biyo kuma shubin, daboolkaas ayaan saaray isaga ayaa insha Allah marka biyaha soo gursaday si iskii isu soo cabo ayaan isku soo noqon doonaa. wada aragtaan waxaa soo biyaabo dhalay xabad basbaasan dabadin ku riday. insha Allah biyaha markuu soo liqo ayaan isku soo noqon doonaa. dabkuna meel fiican ayuu u joogaa, isku soo noqod wanaagsan. asxaabtayda quruxda badan leh wada aragtaan digaageennii ama cuntadeennii ayaan diyaarsanaynay. biyihii ayadu dhashayada ayaa isu cabtay. wada aragtaan waxaas oo saliida isagaa dhalay ama subag ah, qof walba siduu yaqaano. anigu wax saliida kuma darin. hadda korka maxaan kaga darsan doonaa sadarki doontaan. halkan waxaan ku haystaa waa baradho iyo kaaro aan si yar u soo jaray. waan ku huurin doonaa mar haddii uu bisil yahay. Allahumma salli ala Muhammad. halkan sidoo kale waxay iigu jirtaa waa basasha iyadana si yar soo si dhuuban soo jarjartay. xabad weyn oo basal ah badilaahi doontaan mid ku alaabtaas ay isku soo baxdo insha Allah. daboolkeeda ayaan u jiidayaa, dabkana waan u gaabinayaa. wax allaale iyo wax kale ku sameynaya hadda markaan soo dhamaado dabka ka soo qaadana insha Allah isku soo noqon. asxaabay digaageennii markii soo diyaar garoobay waa kan insha Allah bileedka ayaan inoogu soo shubi doonaa isla socod wanaagsan. asxaabtayda waxaan rabaa wax yar inaan idinka dabageeyo. maad aragtaan waxa saliid ka miirmay, hal xabo oo saliidana kuma shubin, waa dufankii digaaga ka dhalaalay. asxaabtayda quruxda badan leh halkan waxaan ku haystaa biyo kaaro ayaan ku soo guray. Allahumma salli ala Muhammad. bariiska ayaan biyahan ku karsan doonaa. bariiskayga saliid kuma dalici doono, wax kalena kuma dalici doono. biyahaas iyo khudraddaas isku soo karkarin doonaa. halkan laba khudradood oo kale aan ku haystaa waa bitibwa iyo digirta cagaaran. bitibwaga ama digirta cagaaran ayaan ku soo guran doonaa. digirta dhaadheerna hadhow markuu bariiska aan ku shubayo iyadoo ay ka jilicsan tahay labadan ayaan kula shubi doonaa. xawaashaad ma jiro, milix yar baan ku dari doonaa insha Allah isla hadda iyo malqacad saliid oo liifa ah. maca salaama. intaas ayuu ka koobnaan doontaa qadadaydu. isla socod wanaagsan asxaabtayda aadka u jecelahay goor kasta iyo goob kastaba. waxaan idin leeyahay asxaabta cusub ee igu soo biirtay welcome. gurigu waa gurigiinii, waxyaabo badan oo tayo leh ayaa ka heli doontaan. badan leh halkan waxaan ku haystaa waa malqacad oo liifada ahayd, taasaan ku shubayaa. dabka ayaan isku soo saari doonaa insha Allah isla socod wanaagsan. waxaan haystaa wax yar oo milix ah oo qiyaas ah. milixdiina waan ku daray insha Allah.
بريسكنا وكسر شو بدنا مركب بيو سو كران أصحابتي دقروح بدن لو دركتان بيجي سو كريان حطوا الله يدم بريسك أيام كشو بدنا إسل السعد أصحابتي دا ودركتان بريسك اللي مركب كسر شو بيجي يكري بريسكنا سوق أساسي لا سو في عام سو ما يري وضلا ركتان تحديدين كمان دمبينين هذا أنت كدب وحنكوب شو بدنا خضرتي كلا عقاري وأيضا هالكن يقول ديارة إن شاء الله إسل السعد وناكسن وضركتان صحابي ساسا يكو صوب سلاندونا إن شاء الله دبكونا ميل في عنا يقول شوغا ومنا ديرا ومنا قابنا حابتين نقروح دبدن له بريسكي وكاس وصو ديار قروبي وابساي منصوها بين دونا إن شاء الله حابتين نقروح دبدن له بريسكيني يدقاقيني سيداس أي صوبحين كران لها هذا عروبتي أي قيلين يسا وضركتان بريسكيني قروحديسي سيدو كسو بحي يدقاقيني ما شاء الله يخطردي إن بعاني ماها وون يتو ومعان قفك أنا هايسان أوفنكا أما ما أنت أوفنكا يعني كبودو ساس هذا السمايسان كاسي حولير ثلت كيني وكا ما شاء الله أنت هايسان إلهي هسيو أنت هايسان إلهي هاو علفو وأنا ومروءة وإذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.